إذا كلفتكين هذا ترتان باهي وارتان إنت فريستان هذا آلية قاب تبغى تمالان بعضان أنا قاب كان مالو فيري هذا وان نمت بريد يزدحان وان نمت وان مكانا هذا waxaan qabanay waxa weeyaan wax la yiraahdo open talk hadal furan macnaheedu wuxuu yahay kaliya sidee hadalkan furan qof walba wax laabta ugu jira oo uu sheegan kara waxaana forumkan aan ku bilownay waxay tahay caasimadda Muqdisho oo aad u ballaaran waa si kala qaadnay marka waxaan dooranay degmooyin waxaan ku bilownay maanta degmada Boondere ayaa waxaan go'aansanay inaan soo keenno dhalinyaradii waxyaha ka socotay Boondere iyo hoggaankoodii si ayaga xaggooda u sheegtaan caqabadaha ka dhex guuxaya dhalinyarada iyo waxyaabaha aysan mar walba taliyaha ama hoggaanka chance u helin ay hadda u sheegi karaan وهرين محارة الدنيا عربية الدنيا تكمل هذا مرة الدنيا دارية الدنيا كمان تكمل خاطر أنت بنوا عليك بحين واحد قال الحياة دنيا لا تكون كان قوة كبنات سيدا هو يتكلم الدنيا كمان يبدي سيدا ده بشقة بوليسكا وحيتها دليردا إن كل حاجة إنه شعبك تليتو ويلكا يكدليردا أنت inaan ku dhex jirno oo la socono oo dhaqaale la socono shaqadeena booyaba sababtoo booliiska bulshadu ka yimid bulshadu u shaqeeya bulshadu ku noqonaa marka waxa waaye dhalinyarada aniga waxa ma kala nihin sababtoo waxa waaye inaan ayaan wax kuna inay nala sheekaystaan oo waxna weydiiyaan aad u fiicanta waxa maanta isu keenahayo waa deegaanka waa waxaan annaga wada dhowranayno waajibna ay tahay inaan wada dhowrano wax haddii deegaanka ka halaabo ayagu ka halaabaya annagu naga halaabaya deegaanka dhan oo ka wada halaabaya si aan u dhowrano waxaas waxa ayna faraysaa danteena guud inaan iska warqabno waxyaabihii dadka dhibayay ama deegaanka dhibayayna inaan ka wada hortagno waxaan rabaa inaan gaarsiiyo dhalinyaradeenna maanta berito loo mustaqbal ah inay ka wanaagsanaan doonto biidni illaah maanta ayaga waxaysan qabanin berito lama hagaagayaan inay ku dhiiradaan rajada kor u qaadaan mataqaanaa deegaankoodana ay kaalmeeyaan